وعلنكيد مدبو عيني قلوبا علنكيد دول عينو إنك كنوا عركو كلاي أنا عاد بلهي بعاسقي Soomaaliya adigana waxbarta oo noolada hada masin gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibraahim Cumar Mahadalle Ibraahim Dheere iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir Sheeketi ayaa maanta waxay kormeereen iskuulka Shariif Qulateen oo ku yaala degmada Shingani ee gobolka Banaadir. Kormeerka ayaa waxa uu ahaa mid ay ugu kuurgalayeen sida ay wax ku bartaan ardayda iskuulkan wax ka barata kuwa oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Iskuulka Shariif Qulateen ayaa waxa uu ka mid yahay iskuulada ay dowladda hoose ka bixiso qarashaadka ay wax ku bartaan ardayda dhigata iskuulkan. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibraahim Cumar Mahadalle iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta ee maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir oo si wadajir ah warbaahinta ula hadlay ayaa waxay ardaydii goobta ku sugnaa kula dardaarmeen inay xoogga saaraan waxbarashada. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Mudane Ibraahim Dheere iyo Maro Basma waxaan idin leenahay ku soo dhawaada dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Shariif Qulateen degmada Shingani. Waqti waa kulul yahay ardayda banaanka safan tahay hadduu Ilaahay ka raali noqdo waxay diyaar u yihiin wax alaale wixii talayo tusaale oo la siinayo haddana waxaan idinka codsanaynaa inaad ku soo dhawaataan baahiyadiina kala duwan inaan ogaano xaaladda iskuulka uu ku sugan yahay inaan ogaano maadaama mas'uuliyad gaar naga saaran yihiin ubadkeena Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaan ka warqabno xaaladaha iskuulka iyo duruusaadka ka baxayo iyo manhajka dawladda inuu ka baxayo aadan ugu qanacsanahay inaan idin aragno waxaan rabnaa marka inaan idin la dardaaranno ubaxi dalka ayaa tihiin madaxda dalka ayaa tihiin mustaqbalkiini iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed inaad ku dadaashiin in waxbarashadii aad ku dadaashiin aqoon la'aan waa iftiin la'aan inaadan noqonin ardayda darbijiifka meelaha taagtaagan inay la idin mid hawaabinin inaad ku dadaashiin waxbarashada iyo dawladnimada aad soo dhaweysaan waxbarashada idinka u bari wax idin taraa qof kasto wax barto asaga ku faa'iidayo marka waxaan rabnaa inaad ilmaha kalena oo xaafadaha jooga keetaan sababtoo ah iskuulkan waa lacag la'aan waxaan ugu talagalnay maamulkeeni in ay ardaydu wax ku bartaan sababtoo ah shalay haddii iskuulaad badan jiro lacag lagu bixiyo annagoo taas ka carareyna ama aan rabno inaan ka jawaabno iskuulaad badanna aan rajaynayno wasaaradda waxbarashada in maamulka gobolka Banaadir ku soo wareejiyaan ee noqon doonaan iskuulaadkaas oo dhan lacag la'aan kuwa haddaan gacanta ku hayno kulligoodan ay yihiin lacag la'aan. waxaan soo booqanay iskuulka Shariif Qulateen oo ku yaalo degmada Shingani. iskuulkani wuxuu ka mid yahay iskuulada ay gacanta ku hayaan gobolka Banaadir waxaa lagu bartaa lacag la'aan waxaa dhigato arday ka kooban ilaa iyo dugsiga hoose dhexe ilaa iyo dugsiga sare oo gaarayo dhowr boqol oo arday oo Soomaali ah runtii waa nasiib badan yihiin maadaama cashuurtii laga qaaday dalkooda gaar ahaan gobolka Banaadir in ay wax ku bartaan waa arrin oo aad u wanaagsan farxad gelinaysa ardayda Soomaaliyeed laakiin waxa laga doonayaa ayagana inay ogaadaan inay wax ku bartaan cashuurtii dadka Soomaaliyeed laga arooriyay markay wax bartaan ay u abaalgudaan dalkooda iyo gobolka Banaadir ay noqdaan wadaniyiin og in macnaha abaal lagu leeyahay rabana in ay abaalgudaan. waxbarashadu waa iftiin waxbarashadu waa waxay ka saaraysaa mugdiga waxay ku horseedaysaa iftiin ilays waxay ka reebaysaa xumaha waxay kugu toosinaysaa samaanta waa shayga kaliya ah ee qofka aqoonta leh uu ugu bixi karo gaajada iyo abaaraha iyo wax walba xun haddana ku jihay karo wax walba fiican taa waxa dheer in ay ku beerto wadaninimo Soomaaliyeed
maadaama aad canshuurtii dalka aad wax ku barateen. Nasteexa Abdulqaadir Xasan TV-ga Dalsan magaalada Muqdisho.